gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saaxil Khadar Cali Cilmi iyo xogayaha fulinta dawladda hoose degmada Berbera Suhayb Maxamed Cali ayaa si wada jir u dhagax dhigay sariibad cusub oo ay yeelan doonaan kalluumaysatada magaalada Berbera. Sariibadaasi kalluumaysiga ee magaalada Berbera ayaa waxa dhismaheeda hirgelinaysa hay'adda GIZ. xogayaha fulinta dawladda hoose Mr. Suhayb Maxamed Cali ayaa sheegay in ay sariibadani door muhiim ah ka ciyaari doonto suuqyada magaalada Berbera. sariibadan caalamiga ah ee loo dhisi doono hay'adda GIZ ay u hirgelin doonto kalluumaysatada reer Berbera waxa loogu talagalay inay noqoto sariibad muxuu ahaay caalami ah oo ka falgaraysa baahidii loo qabay meeshii lagu iibsan lahaa kalluunka lagu iibsan lahaa waxay kaloo horseed u tahay inaynu horumarino dhaqaalaha weyn ee aynu badeena kala soo baxno. waxaanu leenahay sariibada hilib baanu leenahay Berbera taasoo loogu talagalay inay qaadato dhismaheedu muddo 2 bilood ah. marka gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saaxil Khadar Cali Cilmi ayaa isaguna tilmaamay in sariibadan muddo dheer loo baahnaa waxaana kamid ah hadaladiisii in maanta magaalada Berbera magaalo xeebeeda laga dhiso sariibad kalluun ama kawaan malay waxaan rajaynaynaa in insha Allah tacaala sariibadan ay noqoto tii dadkeena fahamsiisa faa'iidada kalluunka. waxaan rabaa in halkan uga madaqo hay'adda GIZ oo iyadu maal gelinaysa isla markaa ay shirkadda dhisaysa. waxaan rabaa inaan u soo jeedo dawladda hoose inay noqoto dhismahaasi dhismo tayo leh oo ay maadaama iyadu la wareegayso ay kala socoto qaabka u dhismay qaab macquul ah noqdo. reer Berbera waxaan u sheegayaa qorshaha dawladda hoose iyo dawladda dhexe gobolka Saaxil wax u qorshaha sanadka cusub in ugu yaraan bishii maalin Berbera kalluun waxaan aan lagu cunin saasay noo balana saawna qorshaha ku darsan sariibadan kalluumaysiga ee cusub ayaa waxa ay door muhiim ah ka ciyaari doontaa guud ahaanba kalluumaysatada ka kalluumaysata gobolka Saaxil oo aan hore u lahayn sariibad kalluumaysi oo ku iibin jiray suuqyada kala duwan ee magaalada. waana sariibadii nooceeda ah imika laga hirgeliyo magaalada Berbera.